muwaadini heer buu gaaraa noloshiisa uu dib u eego bulshada uu ka yimid xilli uu diyaar u yahay inuu ku kordhiyo waxaan u arkaa waxaan soo gaaray xilligaasi ma doonaya anigoo odayo retire ah inaan waddankii dib ugu noqdo waxba qaban karayn waxaan markaad weli xoogga leedahay bal ummadii waxaad u qaban karayso aad samaysid waxaan ka arkay qaaradda Afrika iyo wadamada kaleba dadka qurba joogga ah wax soo bartay ay waddankii dib ugu noqda waddankii dib u caawiyaan aqoon bay ku biiriyaan iyo xoog bay ku biiriyaan iyo way aragnimo cusub oo ay ka soo kororsadeen adduunka caalamka kale marka tiiman isleeyahay aniguna sidoo kale samaysid gudoomiye ku soo dhawow telefishinka Somali Channel waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood waxaad nooga sheekaysaa maadaama aad imika u doorateen Jamaal Cali Xuseen inuu noqdo musharaxa u taagan xilka madaxweynenimo ee xisbigiina maxaad Jamaal ku doorateen inuu xilka isugu taago waan in badan aan aqaanay oo xiriiri jirnay ilaa 1999 waa nin magaalada Fishan nin qabyaaladu ka maqanta weeye waa nin dhaqaalaha yaqaana waddankana wuxuu baahay qof dhaqaalaha yaqaana in magaalada saay oo hoggaanka qabto waa qof aan filiyo inuu himilooyinkii aan xisbiga u sameeyay iyo barnaamijka u dhisan inuu wadi doono oo hirgelin doono ayaan ku kalsoonahay ayaa ka caddaatay maanta laga bilaabo inkaas musharax maaha marka sharcigaas waa lagu kala soconayaa constitutionka xisbiga iyo xeerka number 14 ayaa nahagaya sulux iyo halkan baa la sacab la noo tumayo hablaha jecel iyo waa la ii proteinayaa waxa sida musharax lagu noqonayo